waxa saacado ka hor dunida ka tegay dhakhtarkii ku caan baxay naanaysaha badan, dhakhtarkii masaakiinta, dhakhtarkii guusha, Dr. Maxamed Mashaali, dhakhtarkii dadka saboolka ah. Dr. Maxamed Mashaali waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dhakhaatiirta ugu caansan dalka Masar, halkaasoo lagu yaqaanay inuu siiyo adeegyo caafimaad dadka saboolka ah, kana qiimo jaban marka loo eego adeegyada xarumaha kale ee caafimaadka. Waxaanu ahaa dhakhtar la saaxiib ah wanaagga iyo khayrka. dhakhtarka oo sumcad weyn ka helay shaqadiisa samafalka ah waxa uu qalin jabiyay kuliyadda caafimaadka ee Israa'iil sanadii 1976. Maxamed Mashaali ayaa daweynayay masaakiinta 50 sano si lacag la'aan ah, isagoo ka qaadi jiray 10 gine oo ah lacagta Masar una dhiganta $0.5, isagoo oo dadka ku daweyn jiray xaruntiisa caafimaad ee ku taala magaalada Tanda ee dalka Masar. Waxaanu siin jiray lacaga ay ku iibsadaan dawooyin. Boqolaal bukaan ah ayaa maalin walba saf ugu jiray xaruntiisa caafimaad si ay u helaan adeegyada tabarucaad. Maxamed Mashaali Dr. Maxamed Mashaali waxa uu ku dhashay degmada Buxayla oo ka tirsan Masar, halkaasi oo dugsigiisa hoose iyo dhexe uu ku soo qaatay, kadibna uu soo guuray magaalada Tanda, halkaasi oo jaamacadda uu kaga biiray, isagoo jeclaa inuu barto kuliyadda xuquuqda. Laakiin aabihii ayaa ku qasbay inuu galo ama uu dhigto kuliyadda caafimaadka, sababtuna aabihii ayaa riyadiisu ahayd inuu noqdo dhakhtar, taasi oo u suurtageli weyday, balana uu ku qaaday inuu wiilkiisa ugu horeeya uu noqon doono dhakhtar. Dr. Maxamed Mashaali waxa uu yiri qalin jabintiisii kadib waxaan ogaaday inuu aabahay ii huray qarashkii dawadiisa si aan dhakhtar u noqdo. Markaa waxaan Ilaahay u ballan qaaday inaanan ka qaadin wax lacag ah qofka liita ama dadka saboolka ah ee xanuunsanaya. Waxa uu soo maray oo uu ka soo shaqeeyay goobo badan oo xarumo caafimaad ah sida wasaaradda caafimaadka ee waddanka Masar, isagoo xilal badan ka soo qabtay. Waxa uu furtay xaruntiisii u horeysay ee uu dadka si tabarucaad ah ugu daweynayo sanadii 1975. waxaanu shaqayn jiray 15 saacadood oo maalintii ah, laga bilaabo 10 subaxnimo ilaa 9 habeenimo, isagoo isku mari jiray 3 goobood oo adeeg caafimaad oo tabarucaad ah uu ka fulin jiray. saacado dheeri ahna shaqayn jiray siduu u daweeyo tirada ugu badan ee dadka saboolka ah, isagoo aan lahayn wax fasax ah 7 cisho ee toddobaadka. Maxamed Mashaali ma uu lahayn gaadhi, xitaa ma uusan haysan telefoonka gacanta, waxa uuna ku tagi jiray gurigiisa lug. sidoo kale xarunta caafimaadka waxa uu ku iman jiray lug, isagoo ay da'diisu ahayd mid aad u weyn. mid ka mid ah maalqabeennada khaliijka oo maqlay sheekadiisa ayaa ugu deeqay $20,000, waxa uuna siiyey gaadhi u fiican xaaladiisa. laakiin sanad kadib mutawadiciinta ayaa ogaaday markii uu ka soo laabtay Masar inuu Maxamed lacagtii u qaybiyey bukaanadiisa, gaadhigiina uu iibiyey siduu u iibsado aaladaha caafimaad oo uu dhakhtarku u baahnaa, siduu ugu baadho bukaanadiisa si bilaash ah. barnaamijka caanka ka ah caalamka ee uu daadihiyo wiilka Imaaraat ee lagu caawiyo dadka masaakiinta ah ayaa u yimiday Dr. Mashaali oo ka dalbaday inuu u furo dhakhtar cusub oo yaalaan qalab casri ah, isagoo sidoo kale u fidiyey inuu siin doono macaawino kale. laakiin Dr. Mashaali ayaa ku gacan saydhay inuu qaato macaawinadaasi, isagoo yidhi haddii aan caawimo rabo Ilaahay ayaan weydiisanayaa, laakiin dhakhtarkaygan iyo siduu u samaysan yahay iyo goobta uu ku yaalo waan ku qanacsanahay. Dr. Maxamed Mashaali oo ku dhintay da'da 76 ayaa calaamad wanaagsan oo lagu dayan karo u